madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo looga hadlayay arrimo dhowr ah ugu horeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidamada ammaanka iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada ku sugan furmaha isagoo xusay inay hayaan shaqooyin adag oo dadka shacabka ah ay kaga badbaadinayaan ururka Al-Shabaab waxaana madaxweynaha uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay khasaare adag ku gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab iyagoona meelaha qaar ay kala wareegeen wasaaradda beeraha ayaa ka warbixisay qayb ka mid ah deegaanada Jubbaland uu ku degay ayaxa oo ku habsaday qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaana wasaaraddu ay sheegtay in 20 kiiloomitir uu ku habsaday iyadoona meelaha Jubbaland ka mid ah degmada Balad Xaawe iyagoona wasaaraddu ay sheegtay in dadaalo loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa wasaaradda deegaanka iyo dalxiiskuna waxa ay ka warbixiyeen shir lagaga hadlayay cimilada si xumaanaysa iyo isbeddelka ka dhashay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona wasaaraddu ay sheegtay go'aamada iyo talooyinka shirkaasi ka soo baxay ay yihiin kuwo wax badan ka tari kara isbeddelka cimilada iyo sidii ay saameyn badan oo ka dhalata loo yareyn lahaa